sababta waxa weeye tallaabo kasta oo aan qurux badnayn oo aad qaaddo waxaad ku xisaabinaysaa waxaad yacni minus ka dhigtay oo aad naaqusisay siyaasaddii farmaajo. tallaabo kasta oo qurxoon oo aad samaysana waxaad tahay muraayaddii madaxweynaha laga arkayo oo reerkiisa. marka waxaa la idinkaga baahan yahay mas-uuliyadda dad kale aan saarnayn. yaa haddii halkan dee soomaaliya meel kasta waa joogaane aad halkan ku jirtaan nimanyo reerkaas haddaad tihiin waxaa la idinkaga baahan yahay wax kasta oo sawir qaldan bixin kara inaad ka fogaataan. mas-uuliyadda annaga aanna saarnayn idinka idin saaran. tusaale haddaan idin siiyo hadda madaxweyneha meesha yimid. madaxweynuhu waa nin aniga in adeerkay ah oo hawiye ah markay sidii xisaabtii caadiga ahayd la aado. haddii maanta qof idinka mida oo madaxweynihii oo aan ra-iisul wasaarihii magacaabin oo aan weli salkii dhulka dhigin aad dagaal ku bilowdaan dadka kale waxay u fahmayaan madaxweyne farmaajo inaadna soomaalinimo ku taageersanayn ee markii hore aad qabiil ku taageersanayseen. haddii hadda madaxweynaha meesha yimid aad garab istaagtaan ilaa isagoo uu la imaanayo xumaan looga tago uu la imaanayana meeshaas waxaa ka cad shalayna inaad madaxweynihii hore soomaalinimo ku garab taagneydeen madaxweynahana soomaalinimo ku garab taagneydeen laakiin isaga oo soomaalinimadii calfan waaye. tusaalaha ugu fiican waxaa weeye 2012kii madaxweyne xasan sheekh markii la doortay aniga dadkii aad u garab istaagan ku jiray 2 sano yaan maaragtay la shaqaynayay. laakiin markii dambe aan arkay inuu la habaabay bahashii yaan dhinaca kale oga leexday. marka walaalayaalow waxaa la rabaa qof kasta oo annaga naga mid ah waa haddaan nahay jamaahiirta haddaan aniga taageeryaal ma isticmaalo mas-uuliyaddaa saaran waa bigjarkii madaxweyne farmaajo waaye. sida u dhaqmo waxaa looga qaadanaa inuu madaxweyne farmaajo saas u dhaqmaayo. haddaa qabyaalada aadaan waxaa loo fahmaa madaxweyne farmaajo inaad habeenkii teleefon iskula hadashaan oo qabyaalada oo isaguna ka shaqeeyaa loo fahmaa. marka mas-uuliyad yaa idin saaran. qodobka ugu dambeeya waxa weeye oon idinkula dardaarmayo inaad maaragtay midnimadiina inaad xoojisaan inaad adkaysataan. xukunka waa ognahay waa xanuun badan yahay marka lagaa faramaroojiyo adoo raba. anigu kuleyba hadda waddankan 14 sanaan joogaa. wax badan hadda jab iyo farxad iyo xaalado badan oo nololeeda iskugu jira waa soo arkay. waxaa la idinkaga baahan yahay walaalayaalow inaad adkaysataan oo sharaftii shalay markii xafiiska aan joognay iyo qadarintii iyo qiimihii inaadna maanta naaqusin ood midnimadiini waxaa dhacaysa dowladdu waa cusub tahay. qof kasta teleefona loo soo diri doonaa mid qabyaalo lagu leexiyo mid laaluush lagu leexiyo mid darajo la tuso mid si kale wax loo tuso. marka stay strong midnimadiina iyo muxuuha awooddiina yaan maaragtay idinkula dardaarmayaa inaad adkaysataan oo isjeclaataan oo jacaylkiinu soomaalinimo u noqdo. waxaad yani rabaa inaad xifdisaan madaxweyne farmaajo ma rabtaa haa dhaqan fiicana laga rabaa. farmaajo ma rabtaa haa qabyaalad inaad ka tagtaa laga rabaa. farmaajo ma rabtaa haa danta dalka soomaaliyeed number 1 iyo number 1 intaba ku ah. intaas yaan walaalayaal kusoo gabagabeynayaa. haddii aan maaragtay wax qalday muxuu ahaa yani intaana halkaas aadin waxaan rabaa hal qodob oo kale oo ugu dambeeya soo raalahaada waxaa weeye oon rabaa inaan kugu bishaareeyo. hanti waxaa jirta la yidhaahdo hantida maguurtada ah. hantidaas inta badan waxaa la yidhaahdaa qiimaheedu ama daah ha ahaado ama dhul ha ahaado ama mercury ha ahaado qiimaheedu marnaba inta badan marnaba yaana dhihina hoos ma aado. waa hanti muxuu ahaa meel ku taalla. madaxweyne farmaajo wuxuu uga duwan yahay siyaasiyiinta kale oo soomaalida ah. yacni hantida meesha taallaa midna ma ogida inaad ganacsi qaarkiin soo arkeen. waxaa jira dharka markii la gadaayo dhar higis la yidhaahdo. marka dharka higiska waxaa waaye haddii dukaankaaga uu xoogaa saarnaado bil iyo 2 bil iyo sanad kadib yacni dharkaasu ma gadmo. madaxweyne farmaajo wuxuu uga duwan yahay siyaasiyiinta kale waa mercury waaye waa diamond waaye marnaba qiimihiisu inuu kor u sii socdo maahane marnaba hoos uma soo soconayo. tusaale haddaan idin siiyo Kampala Accord galabtii aan Kampala ka nimid oo xamar aan nimid yacni dadku waxay u arkayeen inay musiibo dhacday. waxaa ku xigay 2012 markii aan tartanay oo aan guuldaraysanay
sidoo kale maana guuleysan laakiin sumcaddii kor ayay sii aaday hadda markii madaxweyne farmaajo xafiiska uu yimid waa ogeedeen sumcaddii hadda markii madaxweyne xasan sheekh uu meesha yimid waatan la leeyahaba madaxweynihii waa in la abaalmariyo marka waxaan rabaa ugu dambeyn inaan qalbigiina ku qaboojiyo waxaad haysataan hadiyad dhanka ilaahay idinkaga timid iyo haysataan waa muxuu ahaa waa yacni waa mercury aan marnaba qiimihiisu dhacayn marka intaas yaa dadka kale uga duwan tihiin ku far adayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu